mas-uuliyiinta maamulka gobolka Sanaag ayaa munaasabada sanad guurada 29aad ee la soo noqoshada madaxbannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May awgeed shacbiga gobolka Sanaag hambalyo u diray. waxaa kaloo mas-uuliyiinta gobolka Sanaag ay shacbiga gobolka Sanaag ugu baaqeen inay si weyn uga taxadiraan halista xanuunka caabuqa coronavirus iyaga oo bulshada gobolka Sanaagna u soo jeediyay inay u hoggaansamaan talooyinka wasaaradda caafimaadku ee ku wajahan ka hortagga xanuunkaasi. waxaana ugu horreynba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro. waa 18 May oo maalintii qaranimada Soomaaliland markii horeysa waxaan leenahay ummadda reer Soomaaliland dhamaanteed hambalyo sanadkiisana Ilaahay si khayr qabta oo caafimaad iyo nabadba ay weheliso Ilaahay nagu gaarsiiyo. dhammaan golayaasha qaranka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyagana salaan gaar ah ayaanu gaarsiinaynaa hambalyo naga guddoonayna. waxaa intaa noo raaca xaaladda lagu jiro waa ogtihiin waddanku adduunyadu wax la qabaa adduunyadina imika waxa haysta COVID-19 baa la yiraahdo. waxaanu uga digaynaa dadkayaga guud ahaan gaar ahaan reer Sanaag qadarka la iskama ilaalin karo laakiin waa isbasriya. waxaad moodaa arrintii iidii soo kordhisay in dukaamadii bakhaarada aad loogu buuqo. xalayna waa laga hawlgalay oo ciidamada magaalada la geliyay isbasriyo si fudud dukaamada waa ka dukaameysanaysaan isfududeeya kala fogfogaada isticmaala qalabka loogu talagalay iska ilaalinta ama afxirka ha noqoto ama gacmo qashiga ha noqoto aad soo ilaaliya. haddii ay dhacdo in aad wax isku aragtaana marka hore talaabada rasuul qaal sameeyay kaliiska adigu noqoto kaligaas isxafido gooni iska dhigto oo qoyska dhaxgelin iyada la soo xiriidho warta caafimaadka ee kuugu dhow cidii xitaa qof xanuunsan oo isagoo isqarinay aragtay la soo xiriid rugaha caafimaadka ee kuugu dhow. haddaad ruga caafimaad wada ciidanka booliska ayaad soo sheegaysaa. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay maarka degmada Ceergaba Ismaaciil Xaaji Nuur iyo taliyaha qaybta saddexaad ee ciidanka ilaalada xeebaha gaashaanle Ismaaciil Maxamed Yuusuf. maanta waa 18 May oo maalintii aad loo dabaaldegi jiray waa maalintii qarannimada. waxaa qaranku u joojiyey xanuunkan jira dartii aan suuro gelin. aad iyo aad ugu mahadsan yahay. waxaanu dhammaan hambalyo u diraynaa golayaasha qaranka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ummadda reer Soomaaliland meel joogtaba gaar ahaan ummadda Sanaag gaar ahaan ummadda Ceergaba. waxaanu leenahay ilaahay sanadkiisa haynagu gaarsiiyo nabadgelyo iyo caafimaad. maalintan waa 18 May qaranka maanta ku Soomaaliland waa maalin weyn oo dadka Soomaaliland runtii ku weyn. waxaan leeyahay hambalyo sidoo kale waxaan hambalyeynayaa ciidamada qaranka ee isku jira bireyska iyo militariga qaas ahaan ciidanka badda taliyaha ciidanka badda salaam baan u diray kaliya laftaa. waxaan leeyahay maalin weyn weeye hambalyo. Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf warbaahinta qaranka Soomaaliland Ceergaba.